iyadoo ay maantu taariikhdu tahay 19 bishii 8 1919 anigoo ah ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas qorane ugaas yuusuf kadib markaan arkay xaaladaha ka jira Jubaland iyo meelaha ay ka diganayso anoo danaynhaya u reebahaya danaha bulsho weynta reer Jubaland kuwa qaxootiga ah masaakiinta iyo dayaca ay maanta u yaaliin ay ku nool yihiin markaan fiiriyey waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad ka sameeyo arrimihii isqabadkii aniga iyo maamulka Jubaland dhaxdaayada yiilay inaan tanaasulaad ka sameeyo oon ummadda iyadaa u samro maadaama aan ahay nin isina oo aanan ahayn nin siyaasiya inaysan ummadda aniga i eersan oo ugaas xuseen ugaas maxamuud baan noo lahaa dhibkaasi aan lii odhan oon dib ugu noqdo dhaqankaygii muxuu ahaa iyo hawshaydii dhaqameed maslaxana waxaan u arkaa ummaddu inay midowdo isfahanto maxaa yeelay system la dumiyay kii siyaad baraa tusaale noogu filan dumin system aan duminay wax macno ahoy saaka samaynayso ma jirto waxaan qabaa iyadoo cid i ikraahaysa iyo cid wax igu shubatay midna aysan jirin kadib markaan xaaladda qiimeeyey iyo xaaladuhu meesha ay ka degan hayaan waxaan go'aansaday inaan arrinkaa isaga dib uga noqdo waxaanan ummadda inta aan mas-uulka ka ahay iyo inta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Jubbooyinka gobollada Jubbooyinkaba kula talinhayaa inay dib u yagleelaan maslaxadooda iyo midnimadooda waxaa sababay qiimeyn aan ku sameeyey xaaladda maanta Jubaland ay ku sugan tahay oon qiimeeyey oon u arko in corruption iyo cawaaqib xumo ay ka imaanayso isqabsigan iyo iska hor imaanshahan iyo dhibaatooyinka taagan een arko kolkaan intaa arkay yaan waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad ka sameeyo ummaddina ugu baaqo midnimo inaan ugu baaqo yaan go'aansaday midda doorashooyinku waa siyaasad weeye in la tartamo ama muxuu ahaa cidi la doorto waa muqadas ama axmed maxamed islaan ha soo baxo ama xidig ha soo baxo ama muxuu ahaa seeraar ha soo baxo ama ha soo baxo muxuu ahaa hadduusan ilaahay kuu diidin mid kale taasi waa siyaasad wey waa tartan hadda jira madaxweynaha hadda joogaana wakhtigiisii waa dhammaaday tartan buu diyaar u yahay taa iyada ninkii ku soo baxana sidaan horay u sheegay waa lala shaqaynhayaa laakiin wixii guud ee nabadgelyo ah ama israac ah ama wadajir ah ayaan ka dhaqan ahaan aniga ku baaqahayaa inay ummaddu muxuu ahaa dulqaad samayso oo dib u yagleelaan nabadgelyadoodii iyo howlahoodii Jubaland waxaan ugu baaqahayaa nabadgelyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meelay joogtaba nabadgelyaan ugu baaqahayaa gaar ahaan reer Jubaland nabadgelyaan ugu baaqahayaa aniguna iyo midnimo aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay mar walba Soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waana danaynhayaa marka waa midda saaka aniga soo celisay hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay anoo ilaalinhaya midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa sabab u ah daayada insha Allah waa mahadsantii